munaasabada shaacinta natiijada imtixaanka fasalka 8aad ee 10 arday ee ugu sareysa sanad dugsiyeedka 2021-2022 oo ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed waxaa ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Koonfur Galbeed, qaar ka mid ah maamulayaasha iyo macallimiinta iskuulada magaalada iyo marti sharaf kale. 10 arday ee ugu sareysa imtixaanka ayaa sanadkan waxay noqdeen kuwa dhigta iskuulo ku kala yaala degmooyinka Xudur iyo Afgooye, halka gobolka Baay degmooyinkiisa sanadkan ardaydiisa aan ka soo muuqan kaalmaha hore. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed, Faadil Cabdullaahi Macallin, oo faahfaahiyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray imtixaankani. imtixaankan oo martaba badan mari waxyaabaha aan ku ulus mayba ku mid ah shaqooyinka wasaaradda qobnaas process-keena oo sabab dab la sheegay muddo mayba dareereen 5 bilood ana ofadow intii ku qayb qaadatay geed inaan ku mahadnaga oo tiro ilaa qof oo hay'adihii amniga ka jaran macallimiinta imtixaanka ilaaliyaasi ka jarta macallimiinta imtixaanka dejiyay macallimiinta imtixaanka hasahaday iyo kormeerayaashii oo imtixaanka qayb qaadanay. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabada oo goobta ka hadlay ayaa waxaa hambalyo ay u direen ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka. guul Koonfur Galbeed soo hoyatay inay tahay imtixaankooda ay qaataan nabad ay ku qaataan gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed laga qaado wasaaradda lagu aamino si sharaf leh u shaaciso waxaan leenahay wasaaradda wada amaasantii. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdifataax Samaale oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa si gaar ah ugu hambalyeeyay 10 arday ee ugu sareysa imtixaanka, isagoona sheegay in wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed ay ka go'an tahay tayeenta waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed. sida ka warqabtaan deegaanada imtixaanka la gaarsiiyay dowlad goboleed Koonfur Galbeed waxay gaarayaan ilaa 14 degmo iyo deegaano kale oo ay ka mid tahay degmada deegaanka Awdiinle, deegaanka muxuu ahay Qurac Joome oo imtixaanka la gaarsiiyay sanadkii horena waa la gaarsiiyay sanadkii labaad waaye ceel berde imtixaanka laga qaaday oo diyaarad lagu geeyay oo xamar laga qaaday muxuu ahay Baydhabo la soo marsiiyay kadib waxaa la geeyay muxuu ahay Qurac Joome. waxaan aaminsanahay marka qof kasto oo wasaaradda imtixaankaasi ay u diyaarisay in deegaankiisa loo geeyo xaq uu leeyahay wasaaraddana way ka shaqaysay ayadoo duruufo badan ay jiraan ayaa laga gudbay waana la gaarsiiyay imtixaanka meesha lagu galay waana la soo qaaday. gabadha ugu sareysa imtixaanka fasalka 8aad ee sanadkan ayaa waxay noqotay gabar dhigata iskuulka Shadog oo ku yaala degmada Xudur ee gobolka Bakool, waxaana gobolkaasi sanadadii ugu dambeeyay lagu tilmaamayay gobol dhanka waxbarashada aad ugu liita, iyadoona xilligan ardada ugu badan ee kaalmaha hore ka galay imtixaankan ay noqdeen arday dhigata iskuulkaasi ee ku yaala degmada Xudur.